السلام عليكم غير شرفت لك وسو dhawaada kulali TV halka waxaan kugu soo gudbinaynaa qiso dhexmarta hooyo iyo saddex wiil oo ayadu dhashay iyo xaasaskooda hooyo ayaa waxay dhashay saddex wiil waxayna ahaayeen kuwa ay noloshooda iyo mustaqbalkooda aad uga taxadirto markii ay saddexda wiil weynaadeen mid walba way u guurisay waxayna dejisay guri gaar ah muddo kadib waxay go'aansatay inay imtixaanto si ay u ogaato meesha ay ka joogto iyo sida ay ula dhaqmi doonaan marka ay waayeel noqoto una baahan tahay saxarada kaadida in laga qaado lana xanaaneeyo maalmaha kamid ah ayaa hooyadu waxay soo baqatay wiilasheeda kan ugu weyn gurigiisa halkaas oo ay habeenkii seexatay markii la gaaray salaada subax ayay wiilkeeda xaaskiisa ka codsatay inuu keento biyo ay ku weesaysato markii uu keentay biyo ayay ku weesay qaadatay kadibna salaadii subax ayay dukatay markii ay salaadii ka baxday ayay xoogaa biyaha ku shubtay sariirtii ay ku jiiftay kadib gabadhii ayaa shaa u keentay hooyadii kadibna hooyadii ayaa gabadhii ku tiri gabadhaydii sidaad ogtahay qofku markuu waayeel noqdo waxyaabo badan ayaa iska bedela xalay marka aan seexday waan isku kaadiyay joodarigiina waan haleeyay xaaskii ayaa aad u xanaaqday kadibna si xun ayay u cayday hooyadii waxayna ku amartay inay joodariga dhaqdo oo sidiisii ka dhigto waxayna tiri mar dambe arrinkan oo kaleeto gurigeyga ha ku samayn wiilkeedii weynaa wuxuu la saftay xaaskiisa wuxuuna yidhi hooyo waad qaldan tahay joodariga dhaq hooyadii way dhaqday joodariga ayadoo ciilka isku celinaysa kadib way ka soo tagtay waxayna soo aaday wiilkeeda labaad gurigiisa waxayna ku samaysay sidii oo kale xaaskiisa ayadana sidii oo kale aad ayay u xanaaqday dhiiggeedana 100 ayuu gaaray ninkeeda ayay u sheegtay ma u jeeda hooyada waxay ugu samaysay aad ayayna u caysay wiilka sida wiilkii ka horeeyay kama hadlin xumaanta lagu sameeyay hooyadiis balse raalli ayuu ku noqday sida wiilkii ka horeeyay sameeyay oo kale kadib hooyadii way soo baxday waxayna soo aaday guriga wiilka wiilasheeda ugu yaraa si ay u seexato gurigiisa waxayna ku samaysay sida ay ku samaysay guryaha labadii wiil ee asaga ka weynaa markii waaga bariyay oo gabadhii u keentay shaha ayay ku tiri gabadhaydii sidaad ogtahay qofka waayeel marka uu noqdo wax badan ayaa iska bedela marka xalay joodariga aan jiiftay waan ku kaadiyey gabadhii ayaa si naxariis leh ku tiri hooyo wax dhibaato ah ma lahan tani waa sida lagu yaqaan qofka markuu waayeel noqdo hooyo adiga joodari ayaad ka hadlaysaa meeqa sana ayaan dhabtiina ku soo kaadinaynay annaga oo carruura adinkana aad noo samri jirteen kadib gabadhii joodarigii ayay dhaqday wayna carfisay hooyadii waxay gabadhii ku tiri waxaa jirta islaan saaxiibtay oo lacag ii soo dhiibatay waxayna iga dalbatay inaan u soo iibiyo dahab cabirkeedana sida aan arka adiga ayuu kula egyahay marka waxaan doonayaa inaad cabirkaaga ii sheegto si aan saaxiibtay ugu soo iibiyo dahabka ay ii soo dirsatay gabadhii ayaa hooyadii cabirkeeda ii sheegtay hooyadii suuqa ayay soo aaday hooyada lacag badan ayay haysatay waxayna soo iibisay dahab aad u fara badan kadib gurigeeda ayay ku marti qaaday wiilasheeda iyo xaasaska ay qabaan waxayna soo bixisay dahabka ay soo iibisay oo aad u fara badan xaasaska wiilasha aad bay u wada farxeen marka ay arkeen dahabka meesha yaal tiradiisa xaasaska iyo wiilasha waxay uga sheekaysay arrinta ay kala kulantay guri walba waxayna u sheegtay inaysan sariirta ku kaadin balse ay biyo ku shubtay ayna doonaysay inay ogaato xaasaska wiilasheeda meesha ay ka joogto kadib dahabkii oo dhan waxay siisay xaaska uu qabo wiilkeeda ugu yaraa wiilasheeda waxayna tiri tani waa gabadhayda runta ayada ayaana la noolaa doonaa marka aan waayeel noqday ilaa aan ka dhimanayo labadii xaas ayaa aad u naxay waxayna ka shalaayeen waxa ay ku sameeyeen saddexdood Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu yiri asxaanka aad sameeyso waxa ku xiga asxaan lagu sameeyo waxaana wanaagsan mar walba in waalidka baari loo noqdo waad ku maadsan tahay daawashadaada haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like saar siina share garay subscribe na dheh channelka si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo wadno